بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكت المامية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن شاء الله درسي يقول لبضنا آيادات بكوري قدونا. آيات كان وحي كورميان قفك مسلم كاه ورب سبحانه وتعالى وتلماميه inuu fiiriyo ama se qorsheeyo mustaqbalkiisa soo socda. waxay isweydiin leh qof haddaad tahay, qoys haddaad tahay, bulsho iyo ummad haddaynu nahay, mid kastaba ha noqotee inaynu isweydiinno ummadeennu xagee u socotaa. almustaqbal alqariib walbaciid, mustaqbalkeenna dhow iyo keenna durugsan labaduba xagaynu u soconnaa. ما اتجاه صحيحين وصعنا أم ننتظر المجهول؟ مسهو حن بين سجينا وحم مقان غيبك وحو نغضؤون وإنه كملهن وح تخطيط أما وح قرشاء إنه كلين مجرته حيث إنه لشدو أهدافت أما غايات كإنه ربنا إنه تحقيق إنه وصمينه قالسك أما himilooyinka aynu rabno inaynu gaadhnaa maxay yihiin? maxay tahay ahdaafteena dheeri? maxaa lagu qiyaasaa? ma miqyaasu dhalik inaynu hore u soconno iyo inaynu dib u soconno maxaynu ku qiyaasnaa? see loo qiimaynaya? bulsho ahaan markaynu eegno waxaad moodaa waddankeena iyo dadkeenu inuu fawdo badan ku jiro. hadday tahay nolosha qoyska, ta qofka, ta bulshada, ta dowladnimada, intuba inuu qorshuhu ku yar yahay. waxaynu markaa isweydiinaynaa dunida maanta la joogo sidee bay u suurtagal noqon karaysaa dad aan noloshaba qorsho ka lahayni inay u noolaadaan ama se u joogaan iyadoo dunida loogu nool yahay maanta sida loo kala xoog badan yahay. alquwa hiya alqiima alxaqiiqiya fi hadihi dunya alyawm. awood ama xoog ayaa amaanta valuega kaliya ama qiimaha qura dunida tan ay eegto. haddaba su-aashu waxay tahay, noloshaada maxaad ka dabacsantay? noloshaada soo socota maxaa kuu qorshaysan? ma inaad dhalato oo dhimato? ma inaad jaamacad ka baxdo oo waxbaratid oo guursatid oo lacag samaysid? ma intaasaa waxaad u nooshay mise qorshe kalaa jira? qoyskaaga maxaad u qorshaysay? dadkaaga iyo bulshadaada maxaad u qorshaysay? dunida aynu maanta ku nool lahay waliba culuum almustaqbal waxa la yidhaahdaa maanta aada loo adeegsadaa oo xataa culimmada qaarkood kutubtooda ku tilmaamayaan inay min furuud alkifaaya ay ku sheegaanba. waa in dadku uu istishraafo ama se uu doroso mustaqbalka soo socda isagoo ku eegaya awooddiisa maanta uu hayo iyo taariikhdiisa tagtay iyo soo jireenkiisu wuxuu yahay iyo daaqada bulshadiisa iyo dadkiisu ay leeyihiin iyo waxa la tawaqucayo ama la filaya inay dhacaan. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay bini aadamku mararka qaarkood mustaqbalka siduu u arko. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إلهي السورة بوينو صوري sheegaysa midkiin miyuu jecel yahay isagoo beer iyo baraare iyo barwaaqo ku jira, beer
isku baxday oo wabiyaal hoos marayaan oo midhale oo wax walba isna uu soo tamar gabayo uu gaboobay dul yaryarna uu dhalay caruur yaryar oo aan markaa waxba qabsan karin dabeetana duufaan haleelo icsaar oo haleelo ay gubato qofkaasi suuradda baan laynoo sawirayaa muxuu filayaa mustaqbal madow buu arkayaa isaga tamari kuma hadhin kuwa korinaya waa yaryar yihiin beertii waa gubatay sawirkaasi siduu egyaa ilaahayna hordhigay subxaanahu wa tacaala kadib baa ilaahay wuxuuna leeyahay kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun sidaasoo kale baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka idinku caddaynaya lacallakum tatafakkaruun si ay u fakartaan wax u daymootaan ayuha alaxiba waxaan leenahay diinta alla inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala waxay ku salaysantahay على التخطيط للمستقبل ورفض العشوائية والفوضى إن يدتكو إن بدن قرشيان نولشو دو تمادد إصاص عطا إن أنا باس كل هين نولش قفكو مسلم كفوضى أنركي ما ملا أنت يستكدب وريقة يبربا وحي نقون دون تصيدي ما أنت هيدون يدو فكرتو haddaad u fiirsatana noloshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaabkaas bay u dhisnayd mithaal waaxida haddaynu tilmaamno hijradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam culamaa siira markay hijrada inoo akhrinayaan imisun bay inoo sheegaan qorshe uu nebigu degay oo ah balaankii uu ku talagalay markuu hijroodo meeshuu mari lahaa siduu cadowga uga dhuuman lahaa siduu u raad gadan lahaa waddadu qaadi lahaa cidday tay cidda hogaaminaysa cid aan laga shakinin inuu daliil ka dhigto raaxilaadkay fuuli lahaayeen inay diyaarsadaan waqti aan la filaynin inay baxaan meel aan la rajaynin inay qabtaan inay u kacaan buraley inay maraan si ay u raadgataan yani markaad daraasayso nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii waxay kuu tilmaamaysaa in layna barayo tashriic iyadoo taasi ay cagsi u tahay maalan إسراء الإسراء والمعراج نبي محمد عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج وحاها تشريف هي تعظيم هي تصلية وينين إلهي والنبي وينين يي لسميرسين يي بلايين كيلومتر السدول بلايين كيلومتر بلغو قياس كرين أي النبي محمد إلهي كحيي مكة وجي بيت المقدس ولا قد الميو عرك اللقبتسيي ولا سوء علي ما هم مسألة الله قلت لك قلينا إنه كقضيانه أما أودي إنكم مصابسنا لكن شن بقولك كيلومترين كي يرسقوا صعون إياه وأما كي مدينة أنت ولا حيسة ولس than 500 كيلومترز شن بقولك كيلومتر بكي يرتي يا إلهي سبحانه وتعالى نبي جوحة لجو إلهامي خطتي وهلك كوجاري لها يا أنت إيقاظتي يا مدافر يا طبعا عشاء للوين يي أو حصل دي بالجمري تسبة تخطيط كده لي تنوال للتشريع تهرى للتشريف بيهيد إسرائيل معراج يكوا كني أما تاني وللتشريع ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحين دريما إن قرشه سودجي يسيد وهاي وحي يقولها جاي حتى عالم كي وحكى الصعدة سيد ولا السعودين ودلبدي دولدود ووينا يدقالكي كدح السعودية إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوغا الرميو iyo ogaalka uu nabigu ogaa calayhi salaatu wasalaam xataa saxaabadiisa markuu rabay inuu u diro ard al-habasha inuu dareemaya ama se warkaa uu hayay ayna xaggani ka cadaalad badantay labadan dowladood iyo intaan agagaarka joogto oo dhan dowladaasi ka tirsan dhulka xabashadu inay ka cadaalad badantay waxaasoo dhamme waa wax tilmaamaya inaanay muslimiintii hore dad ghaafiliin ahayn ama dad iska socda ama dad un suga mustaqbalku waxa uu noqonayo bale xadiis qaarkood baa waxay noo tilmaamayaan waxyaabaha wax lagu qiimeeyo markaad mustaqbalka qorshe loo degayo ugu weyn waxa ka mid ah al-ihsaa'iyaat statistics data in la helo tira koobiyo awoodaada xoogaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorsheynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato إلى حد النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كيالا
رواية مسلم أحسوا لي كم يلفظ الإسلام إيسو تركوه بل أنت قف مسلمة شوكتا مقالة مدينة. أما رواية إمام البخاري اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس dadka inta ku dhawaaqday islaam iisoo qora uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. waxay leenahay markaa laa budda min takhtiit, laa budda qorshayn inaynu helno, laa bud si ay nolosheennu fawdada uga baxdo, siiba ummadda soomaaliyeed waa ummad aanay inta badan tirada ugu jirin saadaalinta mustaqbalka iyo waxay sugayaan. إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وركوا إيمانك لغاها ليو اتقوا الله لك عبصدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بري وحينا في أردقتي وحي أهرو مرستي وحي أردتي ستي سودت هذا ما تغانين عنها ولا دتي يا دسي بري الله والغسي تلقى على بري si loo luli karo inay maanta dhitan noqoto. waxaa la leeyahay waxaad u dhitaysatay baraad lulane, waxaad lulanaysaa waxay noqonayaan fiiri. waltandur nafsun maa qadamat liqad. haddaba uga warrami maayo mawduuca kan sida idaariyiintu uga warramaan, culamaa idaara iyo qaabkay uga warrami maayo, laakiin waxaan uga warramayaa inaanayna tanbiihiye bes iyo waxyaabaha asalka aynu u baahanay inaynu isticmaalno. ugu horeyn ilaahay wuxuu ku baraarujiyo inuu bilaabay yaa ayuha alladina aamanu taqullah, markaas haddana la yidhi wattaqullaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun. waltandur nafsun amarkaa labada hareeroodba waxa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray. macnaheedu waxa weeyaan khitadkeena iyo waxaynu mustaqbalka qorshaynayno dhammi waa inaanu marnaba noqonin wax ilaahay tiisa khilaafsan, waa inaynu cala alhuda inagoo ilaahay ka cabsanayna. waayo cid kasta oo khutad degta calaa gayri huda allah lam walan yuflixu, ma guulaysanayaan. maxaynu u leenahay markaynu qorshe degayno alla ka cabsigu kowha ka noqdo? ugu horeyn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha fududaanayso. bini aadamkuna waxa uu jecel yahay uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan, xataa hadduu qabanayo inuu si fudud u qabto. waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaah yidhi. ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya. waxaynu rabnaa khudada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno. ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday ciddii ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo ka dhowrsata naartiisa in alle dadka u fudaydinayo. waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira. waxaad adigu rabto qudhan lagama hadle, waxaa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran, maxaa kaa hor iman kara, maxaa dhici kara, maxaa isbeddel iman kara, maxaa caqabad kugu noqon kara. qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay. riskiga ama caqabaadka kaa hor imanaya qaabka loo daweeya inay ka mid tahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. ciddii alle ka dhowrsata in alle subxaana wa tacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo, way out, meeluu ka baxo inuu helayo. qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuniyo, samaha kugu hanuuniyo ama aqoon. waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu llaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim. saa ogeed ayuha alaxiba, waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigu. dadka maanta in badan oo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta, 5 sane soo socda maxaa la qaban, 10 sane soo socda maxaa la qaban, 20 sane soo socda maxaa la yeeli. waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada, inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursanay aynu rabno inaynu wax ku baysgarayno ama ku dhisno. haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer
إن إلهي سبحانه وتعالى توجك كوي فيه سيدا وقد إلهي القرآن كوحكوت المامية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إلهي هذا كدور ستان ولا كعبسقو يهي مين بوينت كينا إلهي سبحانه وتعالى وحيدين يليا فرقان بين الحق والباطل وحا حق يا باطل كوكل الصعدان أما وحا كوكل الصعدان صوابك إيا محي إيا خطأ أما وحا كوكل الصعدان شرك إيا خيرك بهلي سنبر بالتلمام يا سبحانه وتعالى waxaan ku gabagabaynayaa mas'alada tan waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii wattaquu allaha wa'lamu anna allaha ma'a almuttaqiin ilaahay kaalmadii inuu ku waafajiyo sida sawaabku ku jiro idan koo waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha alladhiina aamanuu ittaquu allaha waltanzur nafsun ma qaddamat ligad alla cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega bari waxaa u horumarsanaysaan qodobka labaad aan tilmaamaya wuxuu yahay khudadka dadka muslimiinta ay degayaan hadduu qof yahay iyo hadduu ka badan yahayba waa inuu noqdaa maxay بعد الله سبحانه وتعالى الاعتماد على النفس لا على الغير لا على الآخر عالم كمان الرقبة وحي قوان صديرين يجوا أوصية ونقضان إن يهينون هداني يجوا كجردادين إن أظهروا مرينين وحنا كما تشيران دولة ده يرير يدات كمساكين تأيي عين كاني وحي إن بدن إيغان المجتمع الدولي محوين قباه دولة ده وين سيدي قرشه النوار كيا إلهي وحين تلمامية الله كعبصه ونقرشاية نبينا وحلي احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز كد دا الوحك وأنفعية في الدنيا والآخرة إلهينا كالميسو وربي هالنقض عدة كتير سنة هنا عاجسين أي لا تعتمد على الأسباب وتغفل عن ربك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كوا هو عننا دنكودا markaynu masaladan ka hadlayno ugu horey waa inaynu garannaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshaha ku soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxadiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxaynu joognaa meel si loo gaadho cid waliba maslaxadeeda iyo hadafkeeda awooddeeda oo dhan ay isticmaasho waxay dhahdaan kuwa xoogga badan leh ee maanta dunida qaybta badan waxay u arkayaan horumarkoodu inuu ku xidhan yahay dib u dhaca ummadaha saddexaad siiba ummadda muslimka saa daraaddeed qorshahooda waxaa ka mid a inaad adigu weligaa horumarin weligaa inaad horumarin baa qorshahooda ka mid ah walidaalik ayaa hay-aadkooda dhabta ahi waxay fuliyaan waxaa ka mid a waxaa la yidhaha siyaasatu takhriib subversion in la qaso ummadaha inta kale idan waxaan leenahay meel baynu fadhinaa aynu rabno inaynu horumar samayno ama ummad noqonno ama dad noqonno ama dowlad noqonno laakiin waxaa kugu xeeran cid aan ogolayn inaad waxaasi samayso subversionku almukhaabaraat alcaalamiya waa waxa ugu badanee loo dhigo saa ummad loo hagardaameeyo saa dad loo dumiyo waxay yidhahdaan ummad kastoo saddex shay loo sameeyaa horumar ka dheer waa halkeeday nagaanaysaa saddexda shay waa maxay waxay yidhahdaan ixbaad demoralization in dadka lagu qanciyo inaanay hore u socon karaynin in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi adigu waxaad u baahantahay bay ku leeyihin capacity building soomaaliya imka 30 sannadood waxaa lagu waday maxay capacity building waa ma awoodaane waa laydin dhisayaa awooddiina la dhisayaa
kuwa dawladda yar haysta iqtisaadiyadkooda waxa ugu badan ee lagu tawjiihiyaa waa iqtisaadu siyaaxa waa dhaqaalaha ku salaysan bay yidhaahdaan maxaa la yidhahaa tourism siyaaxa waddankiina meel loo soo taga ka dhiga xayawaankiina ha dilina kan ha samay iyagu intoodii way mariyeen maxay iyagu u dayn waayeen siyaaxadu waxay yidhahdaan in economics marka la joogo waa qaybta ugu horeysa ee dhaqaala burburka uu ku dhaco bini aadamka marka dhaqaala burbur bilaabmo bal wadanadan islaamiga u fiirso waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan iyagoo qoobada yaryara ayaa qolo waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan qolo waliba waxay doonaysaa inay siyaaxa ka shaqayso waa dhaqaala burbur sidiisa u yaala dunida waxay yidhahdaan ma horu maro ummadaan industrial noqonin casrigaynu noolay waxay yidhahdaan marka ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagu sameeyo in lagaa dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin inaad dambayso inaad ku qanacdo kaalmadiisa mooyaane inaad adigu hore u socon karin ka labaad waxay yidhaahdaan weliba waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya maya dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin gruub dhaqaalayahana oo masalada ka fakara oo wadanada kale tala bixinta siiya sidii loo dumin lahaa waa group dhisan maaha wax theory waa group dhisan waa kuwa ka waramayo kale convention of economic hitman ninkii qorayo kale oo kamid ah gruubada tan bal waxaan idin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag Soomaaliyeed ku jiraan dhaqaalayahana Soomaaliyeed inay kamid yihiin markaynu taas soo dhaafno waxa garan kartaan waxay ku sameeyeen Asia iyo numur sab'a dawladii la lahaa waa tigerska ama shabeellada toddobada ah hal dawlada baa tala bixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday intii taladoodii aqbashay waa la waayay Malaysia qura diiday tala bixintii Western ku bixinayay way guuleysatay mushkiladda way ka baxday lixdii qaatayna way jabeen shayga labaad ay sameeyaan ee subversion ka ahi waxay yidhahdaan waa zaczacatu istiqraar destabilization in waddanku crisisku uu ka jiro had iyo goor inaanu degin dadka badh baa u haysto moodaya dowladaha waaweyne inaynu degno inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad weligaa degin dee innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi saabic bandiga toddobaad ee United Nationska xeerkiisa ah bandu saabic macnihiisu waa maxay waa qofku isma maamuli kare hal la maamulo qofku isma maamuli kare ilma yara caruurta aabihi markuu dhinto maxaa la yiraahdaa xoolihiisa ma maamulan kare wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaarsiisa bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa askar ma yeelan karaan oo istilayaan qoriya ayaan laga iibinin dawladnimada xeebtooda ma ilaashan karaan cid kale ha way ilaaliso wax kasta soo qabo waxa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaada mooyaane adiga ciidan kale in lagu dul dhigo wax kale waxani ma aha jacayl lagu qabo ee waa destabilization waa inaad ku jirto inaad weligaa soo kicin Soomaaliya meelaha yar nabadu ka jiraan waa meelaha laga yaabo inaan iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kulay kama madnee ayaa inta nabadu ka jirto qodobka saddexaad ee subversion theory uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization tatbiic al-azma qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qofka Soomaaliga in wax badan iba jiraan ma arko maalinta qarax yar dhacaw isdhaa wallahi dib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka hadii la gaarsiiyo dhibta inuu la noolaan karo haduu gaadho waa halkii la rabay Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka in badan buu dadkan kaga digay waxaan tilmaamaynaa ma aha wax wada tilmaamayo waa waxay istiraatiijiyad caalamku dhigaan مثلا
أحجر بوغو قرين جاينيسة لبكون يشنبغلو السندات كهر نولا السند زوبالي هذا وفيلسوف جنرال الله بوغيسو وويرا كوبا وحن في لي لح بقولي دور statement oo kooban inuu yahay culimada istiraatiijiyada dunida daraasayso dhan baa loo dhigaa militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa waa kalimaad kooban oo ninka kani markaa waa nin philosoph ah fanniga istiraatiijigana looga dambeeyo waxa uu yiraahdaa in ikhdaac al-adu min duni qital huwa arfa' imtiyaz bida adawga inaad jabiso oo ku hoos yimaada adigoo aan la diriirin waa heerka ugu sarreeyay la gaadho buu yiri wal amal al askari huwa aqall turuq jawdatan li ikhdaac al adu bida military inaad cid u jabisana waa qaabka ugu hooseeya cadow loo jabiyo buu leeyahay yani inaad ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitaba waa farsamada ugu liidata laakiin farsamada u sarreeysa waa maxay inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin هذا عسكري كاغا دبنا ما حبا كاغا دبنا نتجبين كرتو ولذلك بوحوت الماما إن الأعظم بين القادة ليس المنتصر في 100 معركة بل ذلك الذي لا يحتاج إطلاقا إلى القتال لينتصر هل ييغا أما جيسيغا وين هجامية يلا قدام بين كرا ما هبو يرينك بقول قوبود قوليسته waa ninkaan dagaalba u baahan si uu guuleysto ninkaan dagaalku u baahanin si uu guuleysto waxaan qadiyadan u tilmaamayaa marka waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad al-i'timad ala nafsi hadaynu yeelan kari weyno oo cid kale inoo dejiso khutadkeena iyo road mapka iyo meeshaynu marayno abid guuleysan maysid waxaad guuleysan kartaa iyo qura markaad adigu awoodaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad blangaraysato waad guuleysan kartaa ama cid kale i wanaajinaysa warka gaalada oo dhan haddaan soo dhaafo إلهي كتابك القرآن كيسود كوني أفر بغلو سنادود وحين قولي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما تشعل ربي لي كوا قال ذا يا أهل الكتاب يا مشركين بس قدر كوا قال ذا ما تشعل أن ينزل عليكم من خير من ربكم حق علينا خير كهشان ما هينا يجو خير كسيان حق الربين خير دين كي ما دام تشعل بإلهي سبحانه وتعالى إذا مدان تشعلين حق الرب خير كهشو أي يسقول لك خير كاسين يا هدات رميسته واتشبط واحد كم تهاي كل صوت المامي يجو ملا وقبياقي الصومالية دي شيء baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badane waan doonayn inaad heshaan daayin abidkaaye dadkuna moodi dul wada dhashoon wax u dahsoonayne yani nin Soomaaliyeed oo kale tilmaamaya laakiin xaqiiqadu wax weeyaa waa kuwan baa nooca kan u fakaraya maxaa markaa ina saaran khutada aynu degayno waa inay bataanaadka reer galbeedka iyo waxa la socdo dhami ka baxsanaadaan إلهي بوحل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وركوا إيمانك لقاها ليو ورلت لي يا لآن إذنك هين هيالني نبا إلهي لي ويدن لقوين يعني لا يألونكم خبالا ويدن فسهادين ينبر ربكو شيء مركزاتنا واحد هذا خبير عدا كصعوطة هداد إيمان سنة خبر بدل ما ليدين لكن دير كعاد من كم إذا علماء الصومالية جامعات كرر قلبات كنا رجع شوقي وين كترسان أيها وحيدي وحني ما هذه السببة
markaasaa waxaa iga soo horbaxay buu yidhi nin baa ii yeedhay cabdulcabdi xagga dambe nin iga yeedhayaan maqlay buu yidhi markaan eegayna waa nin cad uu ii yimo aduu ninkii way iswaraysteen ninku muxuu ahaa marka kan United Nationskii qaybo dhan buu haystaa laakiin markay xaggaa joogeen jaamacadda wuxuu ahaa badhiwalaha professorada waraaqa u kala qaada markaasaan ku yidhi buu yidhi wasaad xaggan ku heshay intuu diirkaas qabtay buu yidhi dee aniga awowyaday baa ii shaqeeye adiga awowyadaa baan shaqaynin buu ku yidhi waa runtii aniga awowyaday baa ii shaqeeye yacni ma khabiir la-ini waxa weeye wayna iimaansan weyne ilaahay wuxuuna leeyahy wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa waxaad haysato adigoo haysta inaad horu marto ma rabo waxna maad faa'iidin haddaad diin la'aan waxoogaa dhaqaalaha ku hesho waxba maad faa'iidin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tattabica millatahum ayuha alaxiba waxaan leenahay khudaynu u baahanay laakiin waa inaynu garannaa meesha aynu deganay iyo waxaynu rabno inaynu qabannaa inaanay meel bannaan ahayn oo wixii aynu doonno intaynu dejinno aynu socon karno waxay yidhaahdaan awal maraaxil takhriib bay yidhaahdaan markay nidaamkooda isticmaalaan halka laga bilaabo bay yidhaahdeen burburinta ummaduhu awal maraaxil takhriib huwa ifsaadu alakhlaaq bay yidhaahdaan waa dhaqan doorinta waa akhlaaqdoo la lumiyaa ah stebka koowaad ee markaad la rabto qadaayaadkan saddexda ah ee la rabo inay ummad lagu sifeeyo first stepka la qaadaa waa in dadka moralskooda iyo akhlaaqdooda iyo ethicskooda iyo valueskooda inuu dhinto that's why caalamulislaami maanta war badan looga akhrinayo ah feminism group iyo gender iyo kuwa sagas ka warramaya iyo waxaan sheekhu hadda sheegaya iyo waxaan loo wadoo dhami waa ifsaadu akhlaaqi nnaas waa jirtaa bini aadamku ma aqbalo bifitratihi in la yidhaahdo xuma samee ma aqbalo laakiin xumaa shaadh baa la huwiyaa aadam ibliis kuma odhanin geedkan cunaa dambaabtide muxuu ku yidhi shajarat alkhuldi wa mulkin laa yablaa baan ku tusaya geed markaad cunto shajarat alkhuldiya adiga waxaa lagu odhanayaa waa xuquuqda dumarka iyo waa xuquuqda caruurta iyo wax xuquuqoo la sheegaya ma jiro xaggaasay ku dulman yihiin xuquuqi meeshan ma taalo ee waxa weeyaan waa fasaadinta dumarka iyo fasaadinta caruurta iyo fasaadinta ummadda ayaa asala laakiin shaadhka sare ee la huwinayaa wuxuu yahay maxay erey aanad ka didaynin oo ah xuquuq rights marka laga warramo waxaad is leedahay dee waa wax macquula laba saddex midhoo loojikana la sheego laakiin ma rights baa ninbaa nin u tegaya ayaa human rights ka mid ah qof baa la bedelayaaba human rights ka mid ah يعني wax badan baa laynoo sheegayaa laakiin waxa kan laynoogu sheegaya idan haddii akhlaaqdu ay lunto waa maraaxil fasaadku halku ka bilaabmo gaalada maanta joogta gaalka ugu weyn waa Richard Dawkins waa nabiyul ilhaad bay iyagu yidhaahdaan a prophet of atheism diin la'aanta nabigeeda bay ku sheegaan inuu yahay وأنك اللي قدريوشن أيا وحليه من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدق بولي إن أضد فاليو أخلاقيات أخلاق في عين إن تكور رمي كرتو أدقو أن كنت أجنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فولا يا بولي هذا وكان لا إلهي ما شردتك ويريا وبوكي سجدل يشبك غريا حلي أخلاق لا هذا تربطه إن فاليوس شاكتو وإن كنت أنت هيبوت المام يا محي religious ground هدارت هيسانين ما صورتك لها بوت المام يا أيها الأحبة هل نمرك إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لبتشرب إلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سينين كد داله أجننا ولتنظر نفس علماء واحد هذا أنا أيضا قيبته هوري مركي اللي سفري تقوى أنت إيمانكم بالله يا أيها الذين آمنوا لكن مركي laysfarayay nolosha in la qorsheeyo waltandur nafsun ay kullu nafs
نفها اكتبا ليري مركا واحد هذان النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفها اكتبا إلى ما قدمت الغد بري وحظهر مرصته الغد بريدا دوا نقون كرا بريدا دروك سنة ونقون كرا وحكاد دم بيودمي وبريتو وحكاد دم بيودمي وبريتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوقي هاي وحا سمين إنسان قصدك كاليدين هي بواطنتين هي ظواهرتين نبر ربي وأوقي سبحانه وتعالى وحا هو بالا مركة الدنيا آخرة أيين هريها الله الدنيا آخرة اسم الله اسكو قيمنا معها اسكو الرزقي اسكو مشكلتنا معها taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorsheynayo keeba mudnaanta leh yani markaad qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities ba kala jira waxbaad kala horeysiinaysaa siday u kala weyn yihiin u kala muhiimsan yihiin baad u kala horeysiinaysaa qorshaheena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo marka leena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro qofka muslimka ah ee siyaasiga ah ugu horeyn waa inuu ka fekeraa ummadan ay aakhiro naar uga baxsan lahayd jannana u gali lahayd waayo that's the most important thing waa waxa ugu muhiimsan ee aad dad u qabatid ثانيا بعد سويدينيسا تاسيد لو غاديو ee adduunkan inta la joogana si aan loo kadeedmeyn ee adduunkan nolol fiican loogu noolaan lahaa waxaan leenahay marka aynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horeeyaan waliba waxa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimada leh ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa aakhiro waxa iyadana lagu tagay ku islaaxda maxay adduunkan islaaxintiisa tanba mazraca u ah marka ugu horeyn weynaynu aad uga fakarnaa ilaahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قرشها كواد وينو كجرا wax kasto aad samayso baraad la kulmaysaay muxuu yahay jawaabtaadu wax kasto aad samayso adduunkan aad qabato wax kasto aad qabato amal kasto ka soo fula baraad la kulmaysaa ee maxay tahay jawaabteedu sida awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro la talinaya nin dhalinyaro ah inagu dhalinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa dadna dhalinyaro aragto waxbaro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kama ha taladeenu talada ugu badan ee dadku waa in dhow unbay dadku arkaan maca kuwan ay yidhaahdaan indheer garad indheer ma arkaan in dhow bay arkaan dadku waa wada indhow garad buu badan yahay waxaynu ilmahaaga qorshaha ku yaala muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waad diyaarinaysaa maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto berritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon marka qorshahaagu wuxuu badayay ma diyaarinay dhammaanteen isku keen dar wadaad iyo wabiinba keen raace intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay bal wax kalaba ha dambeeyaane
ما waxa kugu adag macalinka quraanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malaamadooda waa qaali ba taagantay laakiin waad ogashay jaamacadda dharka ku inaad bixiso ee dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorsheynaysa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam abdullah ibn umar oo nin dhalinyaro abu la talinaya garabka intuu ka dhirbahay xadiiska taqaaniin ee bukhari ku yaala kun fi dunya kaannaka gharib aw abir sabil wa nin dhalinyaro wariya xoogsa lama orano nin noqo guurso oo kan sameeyo xoolo dhaqo laakiin waxa la ogyahay haduu tadambe fikradeeda qabatan hore inay islaaxayso saadaradeed buu nabigu wuxuu ku yiri kun fi dunya kaannaka gharib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay غريبة stranger قفان ماشا ودالانين أما واحد نقطة محي أو عابر السبيل قف مسافرة قف كاس أنت وكفكره إنه ماشا تشوغا أما قرشه ودتشيو قرشه اللي ودتش مركا حوغا جي حولها جي قرشها جو حوغين حاجة ودتش نسا تدنبا ودتش نسا إن التدنبا هو الرئيسيسو أي مهمة سوغا أيها الأحبة وحلينا هاي نلاش خطة كما مارنته لابد من تخطيط للمستقبل لكن تخطيط كأنه سواء مت سياسي هالنقض مت دقالة هالنقض مت بلشيات هالنقض ومد لادي أما أدقو نفط أدوات لادي أما قويس كاقو لي هي وحقوب هي هي إن القرشيسه قرشها جنا بريورتي كوادين النقضه وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلهي حلي يا أيها الذين آمنوا كوي ما كالغا هلايو وأنفسكم وأهليكم نارا ورنفتيني أهلكي نبا النار كإلالية وألين أقيا هين تنسك تشعله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلهي حلي تندوبة تعشين آخرنا أنت بدل ما كتجيسان لكن باش عكسية لا ينوت المامية تاد قرشها قوم مهم سلو دجيسو وراكو حينوت المامية دت كأقانتا لمركي تلينيين حيت المامية إنك قارون حوالها بدن صاحي لي محل ويدي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وروحي إلهي كسيي نلش آخرة كباد قوب كرادعه ولا تنسى نصيبك من الدنيا أدون كان دفت هذا إلا من بالله يعني بريورتي أمام مضنان توحى لما حي آخرة للي أدون كاجا كرادعه والله بد إنه حلا واحد رقص أد مقع يلتي قولي وين أد ست حلا ما ورقة تين تقولي وين جنة كهشوا مسه قولي أنا تكون شرطة عديدية فكرة كوادو حويرنا تكبدشوا حلينات المامية آخر إن مضنان طيالة هو أحسن كما أحسن الله إليك أدون كنها إلا من بالله رسالة سبحانه وتعالى وكونا جينا ونكفل آية كحكته إلهي وحينا قدك يا سبحانه وتعالى كوا قرشها قرشك قد السنة يقوم مري qorshaha inuu sheegayna in leena priority-ga waa inuu aakhira yeelato marka road map-ka aad marayso iyo waxa aad qorsheynayso kuwa iyagu taa dabarogay baa Ilaahay tilmaamay waa aayada ku xigta marka aayada hore amar bay ahayd tan waa nahyi wala takunu kalladina nasu allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun hala mid noqonina baa Ilaahay leeyay sidii kuwii alla ilaabay qorshaha ugu ma jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala يا عبسيدي سيا آخرة يا كاني قرشها وما جرته مع قرشها هذا كشرة الدون كان سيدا وحوار نقول لها ينبا كشرة سوقت بي إلهي وحين لي ولا تكونوا كالذين نسوا الله كون محا قدعة فأنساهم أنفسهم تودا إلهي إلا وسيا بني آدم كمان تدوني دا كنا ولي ماتيريال بورسي تكنولوجي ورد ما هو ماتيريال بكور رمية لكن بني آدم كي ولا ديستكري لاي وصي بابا أيه تكنولوجي وصي هرو مريا بني آدم كنا محي وصي دي بصعدة دقنهان أخلاقهان عقيدهان ضدني ما أهان وصي بهلو بيا بني آدم كدوري دا شوغا
bini aadamka dunida jooga dal dhan baa waxa loo baabiinaya in yaroo dhaqaalaha in laga helo dan kale iyadoo aan laga lahayn shidaalkiisa la boobo ama waxoogaa macdan oo ku qarsoon la soo qaato idan wuu sii bahaloobayaa marka wixii naftooda dani ugu jirta la ilowsiiyey ama ay ka tageen faansaahum anfusahum ulaa'ika humul faasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwee المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم نسوا الله فنسيهم كوا مسألة كوسي فيسني كوا نفتود إلا با إلهينا تود إلا وسيي إلهي إلا با إلهينا نفتود إلا وسيي ومنافقين با إلهي تلمامية اليهود والنصارى في سورة المائدة آية صدحي تبنادي أفيرا تبنادي اسكحيقا قال أول با إلهي وحولي ونسوا حظا مما ذكروا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في سورة الأعراف إلهي كتل مامية إذن أيها الأحبة كوي قرشه هذا آخرة أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كوي جنة قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني ده مركانو جوجنا بحسابتنا وجرتي الله كعبسه مركانو ريرها يجدت كي يجلس جوجني أيانو إلهي كعبسنا سبحانه وتعالى سدا وجدنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كوي قرشها سكحهم ماضينا آخرة إلهي وحنا قلت المامي قال لنا وردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نقول الشيء ده ما هو حوار مرصده أيها الأحبة وحنفلها يا وقتي سلادين قاعدي وانقبي قبينيا قد الله إذا ضاق قيبتك على وقتك لا كورمي ها آيات كان كسو كوبيا كو نولش قرشا الآن ما صعته سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقن كيسي بناينا بريا دين تانا ينا فريسة إلهينا وحينا لي ور مستقبل كينا إيجا مستقبل كاين لإيجا وحي وباهنت بين ليني كو الله كعبسي لبا وحي وباهنت بين ليني إني نكدد ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي وباهنت هاي إني دنيا والله سلومنا يايه رزقي وتربدن إني نقرشك يالنا saynu isaga awdi lahayn ama isaga joojin lahayn hadduu yahay naftaada iyo hadduu yahay qoyskaaga iyo hadduu yahay ummadaadaba riskigaa taagan saad isaga awdi lahayd afar waxaynu u baahanay inaynu eegno mustaqbalka dheer inaynu mudnaanta koowaad siino mustaqbalka dhow iyo mudnaantiisana haddaynu waqti helo waqti kale aynu ka warramay sala allahu ala nabiyina muxammadin wala alihi wasaxbihi wasallam والحمد لله رب العالمين